بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد مسؤولين تا معلمين تا خبراء كصعود أكاديمية هجاج هجامتي هرمرين تا قدوميها والشدلية الصوماليات مسؤول كسرائي كصعود محمد علي شركة دعافي لما أردد قيمة بدن برنامج كأسك ديوان جلسي بهذا ورباهين تا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay marka hore in maanta intaan oo qof oo runtii iskugu jirta dad shaqeeya oo hadda shirkadihii ka shaqeeya iyo dad shaqada mustaqbalka inay aadaan rabo oo shaqo doon aan u bixinay barnaamijkan waxaan ugu talagalnay labada kooxood dadka hadda shaqeeya inay xirfadooda aad iyo aad ay ugu kordhiyaan iyo dadka shaqada raba inay mustaqbalka ay shaqeeyaan oo suuqa runtii inay ka shaqeeyaan marka intaan oo qafood oo doonaysa in ay kordhiso xirfadahooda maamulka qoraalka iyo maaragta aaladaha kombiyuutarkaba inay iska diiwaan geliyaan aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsanahay waxaan leenahay ku soo dhawaada galabta insha Allah taala bilaabashada diblomadan la yiraahdo secretary and office management arintaas runtii waxay cadeyn u tahay ama ay aad iyo aad u tilmaamaysaa in bulshada Soomaaliyeed ay fahmeen qiimaha ay leedahay xirfadda طبعا waxaan qiyaasaya odayaasha badnaa halkan ka hadlana aad iyo aad u tilmaameen gaar ahaan dadkii ku dhex jira fieldiga oo warshadaha ka shaqeynaya oo shirkadaha ka shaqeynaya baahida xirfadda loo qabo xaqiiqatan way cabireen ama aad iyo aad ay u cabireen waxaan mudaa Soomaalida hadii aan nahay waxaan reer guura fahamsanahay Soomaaliya habdo meel ayaa haye lagu yaaca waxbarashada Soomaaliya dhowr iyo 20 sano ka hor dadku inay wax bartaan laguma kari jirin jaamacadda ugu horeysay marka la sameeyay aad laguma kari jirin laakiin jaamacaduhu markay bilowdeen runtii aad iyo aad ayaa loogu maaragtaa yaacay markay xoogay ay socdeen laakiin xilliga aan taaganahay markaan dib u fiirino kumanaan qof ayaa runtii wax barta boqolaal kun ayaa jaamacada ka baxa boqolaal kun ayaa dugsiyo sare ka baxa boqolaal ayaa dibadda ku soo bartay adduunka ku soo bartay laakiin nasiib darro intooda badan waa shaqo la'aan ama ma shaqeeya ama kuwa shaqeeya shaqada si fiican uma qabtaan sida hadda uu ka hadlayo gudoomiyaha warshadleyda oo ah qofku si kasta master soo bartay inuu san shaqadii ku qaban karin oo u baahan tahay dad kaleba ina u hayaar gareyso u shaqaaleysiiso shaqada ay u qabtaan taas waa nasiib darro weyn maxaa keenaya sababtoo ah qaabka ay waxbarashada Soomaaliya u naqshadaysan tahay ayaa theory ah waa qofka waxa lagu shubayaa aqoon guud laakiin ma yaqaano waxaan qabo ma yaqaano sidaas darteeda ayaan akaadimiyada hagaag runtii waxaan aad uga fikirnay inaan sameeyno ama bilow u noqono kacdoonkii wax yaani xirfadaha iyo tayeynta waxbarashada Soomaaliya waxbarashada Soomaaliya in la tayeeyo u baahan tahay dadka hore ka soo shaqeeyay wax fiican ay soo qabteen meel fiican ay soo gaarsiiyeen waxa laga yaabaa xilli dadku inay wax bartaanba ay ahaan jirtay qariib ay ahaan jirtay Soomaaliya xilliyadii dambana inay dadku skill iyo xirfad yeeshaan qariib ay laakiin hadda waxaan bilownay jihadaas ah dadka in laga guuro theoretical qofku theory iyo aqoon guud kaliya qofka in la bare qofka in la baro wax xirfad ah oo la taaban karo oo yaqaano ayaa runtii aad iyo aad u soo bilownay sanadadii la soo dhaafay waxaan dareemayaa inay baahi badan ka jirto diblooma waxa jirtay aan bilownay 2021 diblomadaas waxaa la dhihi jiray xirfadaha guusha nolosha hadda waxaan u bixinay 4 bilood ahayd hadda 6 bilood laga dhigay magaceeda waxa la yiraahdaa hadda communication and personal development waa qofka shakhsiyadiisa in la dhiso kuwa waxa loogu talagalay ama aan u naqshadeynay in ardayga dugsiga sare ka soo baxa iyo jaamacadda dhiganaya ama jaamacadda sanadka koobaad dhiganaya ayaa loogu talagalay inuu si fiican u qaato si uu aqoontiisa iyo awoodihiisa iyo waxa Ilaahay u hibeeyay si fiican si ugu barto dad fara badan oo ka soo baxay barnaamijyadaas ayaa hadda fadhiya oo maaragta oo kamid ahay ninkii qaari quraanka ahay Khalid Cabdiraxmaan oo kamid ahay oo barnaamijyada runtii soo qaatay diblomadan hadda aan dhigan aan bilownana waa diblomo secretary office management loo naqshadeeyay dadka shaqada u socda iyo dadka shaqeeyaba loogu talagalay in xirfadooda iyo awoodooda ay aad iyo aad runtii u kordhiyaan soo waxaan rabnaa dadka bilowgana inaan kala kowsano ya dhamaadkana aan kala kowsano si ay u noqdaan dad suuqa markay tagaan iyo marketka markay tagaan macna ku fadhiya ama dadka hadda joogaba inay awoodooda iyo xirfadooda runtii ay aad iyo aad ay u koriyaan